كو جدتكو مركي هوري اللي بلابي سحب قنا لغو بلابي feasibility studies لما سمينين قيب هجامينتا أنا قيب كهين ملاها شعب كدواتي هيستون بالغة شوابي جيت هالك الوضع بهنا هي هلا سميو حفيز كان الله شيء وجيت هلا قبته أوامر نوعاسة قوة فربضان ولا دحلي من حكومة ورسيب باللوضة أو تخلص بلانقاض مكان تغني جد بان اللي يجري وهره صدق سنة كهر سيدا وكلاونا وحاله نوعاسة هاو حيكانين إن جد فربضان لقبته مركا feasibility study لما سمين feasibility study يلا الله سمينين يا ديزاين كذا قاركود على سمين يا شيء سدي يو budget كي يو وحي اللي قلي بدن كدواتدا ku saabsan arintaasi madaxafseedada hadda jooga masuuliyiinta hadda jooga iyo kuwii ka horeeyay Cabdullaahi iyo ka horeeyay badankooda way dhaxleen marka hadhow dadka daawanaya ama idinka laftigiinu hadii intaas oo dhibaatay maxaa talaabo loo qaadi waayay tahay talaabooyin la qaaday baa jiro isbedel maamul waa lagu sameeyay xafiiska wixii lagu sareeyay waxaan u baahaa dhibaatadu waxa weeye cidii dhaxashay maxay ka xalin kartay oo ay ka gaabisay way su'aashu meelo fara badan isku dayo la sameeyay way jiraan dhowr dadaal la sameeyay markii Cabdullaahi xafiiska yimid xog ahaan oo wixii la soo ururiyo ruuxnimada socon karaan mashaariic waxay ahaayeen mashaariic aad u fara badan ruuxnimada socon karaan aan ururino nagu soo korodhay waxaa soo korodhay design ma leh design hala sameeyay marka qaybaha noocaas waa la sameeyay laakiin waxaa kaloo jirtay qorshe xumo oo ah wadooyinka la qabanayay wax sidii mashaariicaha kale ee deegaanka ka socon jiray baa caadada ahayd waxaa la qabanayay 10% maadaama qandaraas la inaga raacay qandaraas ay tahay qandaraasluhuna masaariif sanadkii ugu haystaa 10% u haystaa isagu adeegadu bixiyo jidadiisu maaha marka wado ay ku baxayso 200 milyan yaa waxaa xafiisku loo qabanayay 20 milyan dhaqan la soo dhaxlayna wuu ahaa oo hore oo patronage distributionkii ka socday deegaanka dowladkii iyo guriyihii la isiinayay iyo tanna waxay ka mid tahay qaybo qandaraasyo badan inta la qabtaa la oranayaa sanadkan 20 milyan u qaban ninkan marka qandaraasku dib kuma qabo masaariiftiisu uu haystaa xafiiskuna dib kuma qabo qandaraaskii uu bixiyay 12 sano iska socoto saas arrangement noocaas ah jirtay marka tii oo la dhaxlay oo wax badan laga xalin ayaa qayb ka iyo qorshe xumo jira hadda marka wadooyinka lagu noqdo mid ma baaha qaar la yidhi halla kansala jira marka kuwa la yidhi halla kansala maxaa loo kasali waayay kuwa la yidhi design ma lahayn maxaa loo sameeyay dadaalo noocaas laga sameeyay way jiraan way soo ururaysaa hadda marka dhab laga hadlo marka maadaama inay qiimeynteedu hadda ay sixitaan tahay wax ka barashaha waxa oo dhan waa la document gareeyay waan qoraynaa laakiin sixitaan maadaama ay tahay masuulka lagu xisaabtamayaana halkan buugna joogin badankeeda hadda oo kale inaan saa u fahno laba xukuumadda waxa ka saaran waajibaad waxyaalaha la sheegay in la xalliyo sanadkii imika hay u dambeysay budget lama hayn lacag lama hayn mashruucii 350 milyan wadooyinku waa qaali wadogtiin marka mashruuc loo hayo 30 milyan oo lacaga aba 20 milyan oo mashruucuna 150 180 yahay design-ka hadii la bedelo 400 uu tagayo wax laga qaban karaa ma jirto marka disaster way ariga jeedku marshal plan bi u baahan yihiin gaar inta la isaga yimaado xukuumadda la fadhiisto khaladaad ka dhacay ee soo jiray arrimaha ay keeneen ee xafiiska dul saaran in xafiiska laga fadhiisto taas oo sidaas xafiisku waxyaalaha kale isaga xaqiis ku soo uraya dabagalkii waxay hadda laga hadlayay ee kale ku saabsanaa mashaariicda laftigeeda qorshaha u dabaxay mashruucii goday ee laga hadlay hadda oo direction cad aan ka bixinay oo korkii dambe lacagta waa laga wareejiyay laakiin ujeedadu ay ahayd hadda 60 milyan hayso mashruuca ugu weyn magaalada yaalana uu yahay de lacagta kale meel kale ka wareeji kan uu ka wareejin oo korkii dambe la yidhi waxaan ku darnay wareejintii oo kale waxyaalaha noocaas oo kale jawaabteedii xafiiska yaa laga rabaa reporting la soo gudbiyay xafiiskii de arkay kaanagu waxaan aragnay presentationkii reporting wuu liitay wuu yidhi marka xafiisku hadduu reporting liitay soo qoray de xafiiskii uu keenay intuu la fadhiisto ha ka caawiyo sida reportka dambe waxa uu noqonayo reportiga waxa qurxiyaa waa xaqiiqada ku qoran meesha design-ka ma aha waraqaha qurux badan iyo waxa dad maanta u dhaabay ma aha waxa ku qoran factiga qofka macluumaadka ka raba macluumaadku reebmi ka helaya way contentida way qaybta kale waa suu u yaalaad waa qaybta labaad waa boontahay wax fiican oo xaqiiqo hadii aad qaab aan habkan u soo dirto iyo laftii akhriskeedu dib buu noqonaya marka labadaba waa in laga eego presentationka qaabka loo soo diyaarinayo iyo contentiga ku qoran labadaba wax ku dhex jira heer daboolka ka maqan xafiisyada badankoodu way keeneen soo uma keenin
herdabalkuna dhibaato yaa isna la sheegay waxa la qaatay automatically weeyeen waxyaalaha kale waa la sheegay naqshadeynta iyo dhibaatooyinka jiray iyo nidaamka iibka ee maha loo soo jeediyay way ka cuslaayeen kuwii kale way ka cuslaayeen nidaamka iibku marka mana ahayn waxyaalaha la dhaxleeyay waxyaalaha hadda inay taagan yihiin oo hadda la sameeyay u muuqda ay ahaayeen marka taa yani awaamirtii ilaa shay laga bixinay sidii loo raaco gudahana in laga seego ay la quman tahay arinta doolo jidadka waa run doolo inta badan jidadka chayga ee la sameeyay haday tahay uma baahna badankeedu inta badan laamiye u baahan tahay iyo in deegaanka lagu soo xidho iyo airport iyo hawlo kale laakiin dab ahaan markaad eegto chayga iminka laga sameeyo meelaha qaarkood wadooyinka haysata ka wanaagsan waxay laakiin u baahan tahay in la balaariyo oo shilalka iyo hawlahan iyo wixii si ay u iman in la balaariyo digoori sarkaan hadad loo sameeyo iyo u baahan tahay marka leeyahay uma baahna waxaan ka wadaa baahida gobolka haysan laftigeeda hadii maanta la weydiyo biyo la'aanta iyo caafimaad la'aanta ka taagan priority koowaad ma noqonayso oo iskuulaad male caafimaad male inta badan leeyd male marka mustaqbalka way u baahnanaysaa wadooyinka laftooda saama ahaan doonaan laakiin hadda in shaqooyinkii awal la sheegay halaga balaariyadii iyo maskaxda lagu hayo way shalal bay keenaysaa iyo dhimasho marka meel la leeyahay yani gaariga meesha maraya uu dhibaya meel waa meel dad ku dhimanayaanba xagga dad ka eegto waxba sooran malaha iyadaba ka emergency ba sooran xagga dad ka eegto marka chay uma baahna markaan leeyahay wadooyinka chay laga dhigan u baahnayn wadooyinka in loo hagaajiyo waa daruuri in loo hagaajiyo taas waa arrimaha percentage iyo waxa waan ka hadlay marka hore aan ka dhaxgalay waa si baan ku deenayaa percentage-du ma sugna inaan been isu sheegin kulligeen xabisadu markay soo gudbinayaanna ma sugna dee hoos loo raaco oo mashruucan boqolkiiba wuxuu ahaa inaan gaarsiiyo 100 laakiin waxaan gaarsiiyey 30 40 yani yaan kasoo madaxfiiska oo noqon soo gudbinaya laftigiisa iyo waxaynaya qacan qandaraaslaha ka maqan lama oran karo laftigeeda maadaama xabsada aan wada qandaraaslada la wada maamulo yani qacan baa ka maqan lama oran karo tirada laftigeeda iyo hawlo kale marka taa in hoos loo eego way la quman tahay qandaraaslihii waa la helaan filaya hadda marka isagana talaabo laga qaado uu sheegay maxamed maxbuud arrintaas sheegaysa ayuu jirtay oo aad ka hadlaysay oo arrimaha qandaraaslada xidhiidhka xiriir la'aanta iyo waxa ka jira marka taasna laga sameeyo qaab loo sameeyo gobolku marka meesha jooga mashaariicda ka socota halka degmadu mashaariicda ka socota liiskeeda inta loo diro qandaraaslaha loo diro contact address-kooda loo diro inuu hayo wey qandaraaslada mas'uuliyadda in la saaro marka meesha tagaan halka ugu horeysay la xiriiraya inuu gobolkii inuu wixii noqdo in qaab shaqeed noocaas in la sameeyo ayaa inaga xalinaya inta badan waa la dhaxlay waxa la oranayaa dhibaatooyinka hadda jidadka laga hadlayo dhibaato aad balaaran weeye direction waxa jiray beeraha iyo dalaga iyo xagga iyo biyaha iyo u kacno laakiin jidadku aad bay dadku ugu baahan yihiin aad يعني markaad eegto meelaha qaarkood booyadaha biyaha la dhaaminaya maasiin og yahay dhibaatada ugu badan waxay ahayd loola wada ahayd xitaa dad abaaratira iyo biyo wadadii waa laga yaabaa inay kasoo wadana wada jirtay si loo gaari aad baa loogu baahan yahay sida daraadeed si hadda u yaalaan si ay ku socon karaan hawa yaraatee ma waxyaalaha adeeg bixinta aan soo helay khadar way qaybteedii adeeg bixinta xafiiska dhalila xoog la loo soo jeediyay aad u balaaran هذا مركز روعي يقول سبعين يعطيك اليوم حسوا قار هلا يقول لكن دليلها سي ده وقوس كعادي منها يعني حفيزك شقي سي فايل ملها معناها مو بهنين رفهم كان إنه وقال له إنه فايل شيء والله ما هي دي لي وارين سيريس ويا يعني ضيع بقى مقضى سرقاك حقي سالورن كلام مركز هاسنا دخصو إن مرت يد عدي الهيد لا صاروا جود دي بقى يعني لقمن لم يدقوا exactly سي لا صار وصار دكتور شعب الله ويا ورورك بان بلغ سمي ولابيدا in kasto dhaashin badan laga bixiyay kolkii horena qandaraaslaha inaan go'aan laga qaadan agtiid uu jiray ku siyaasadeed iyo ku xafiiskaaba uu jiray oo waxyaalo la xiriirina waxna caas ugu jiray fara badnaa laakiin markii dambe go'aanka la qaatay li hala waxeeyo 1.3 wadi karaaba la yiri waayahay taa wadi karo lacag ba ma naga maqane ha wada intii kale in lacag uu naga haysan aynu cid siin la yiri waxay ahayd go'aankii la kala qaatay in la fuliyo haddii laga bedelayana nalaga soo noqdo oo la yiraahdo go'aankaas nasiisay directiona lacagta la joojiyaa liisaan yaala in la isdaabayd
marka in yar halkaas uu jira imikana exactly dhaqso loo soxo degdeg loo soxo sida ugu dhaqsaha badan in arrintaas mashruucaas loo dhammaystiro qandaraas lahana talaabadii sharciga ahayd laga qaado 1.3 kale wixii loogu talin lahaana la soo dhigo yaan direction ku bixinayna dabagalkeedana xafiiska madaxweynaha inteeda ha yeelato intaasaan kusoo koobaynaa